hadda magaalada baran ayaan rabaa inaan xogihii ugu dambeeyay aan idinka dabageeyo iyo sida ay wax u dhaceen qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca intaba ajandayaasha qarsoon ee aysan bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka mataqaanaayay deegaanadaasiba aysan ka warqabin ayaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago cidda soo abaabushay weerarkan xargahan cidda isku xirxirtay dhammaan macluumaadadaasi oo dhan ayaan rabaa inaan markaasi si guud u dul istaago waxaan ka codsanaynaa fariintan sii share gareysaan muuqaalkana aad gareysaan aad baad u mahadsantiin horta marka koowaad ninka fidnada la doontay gobolkaasi Sanaag ee nabadda ah ee dadkaas mataqaanay hooyooyinkiis iyo abayaashiis iyo walaalihiis fidnada la doontay waa ninka way sawirkiisidin waa ninkaas wixii maanta dhibaato ka dhacday dhimasho iyo dhaawacna isaga lagu la xisaabtamay waa ninkaas waa horgalkaas oo u jeedaan calankii Soomaaliland uu qaba ninka hawshan abaabulay markii dhibaatada ay dhacdayna mudaharaadka soo abaabulay ee mataqaanay baran ku dhuumanayo ee qorshahan qaybta ka ah waa nin mataqaanay magaciisa la dhaho Cabdalla Maxamuud waa ninka u qaabilsan maamulka iyo doorka magaalada baran wiilkiisana haddaad cadeyn rabtid waa kana waa ninkan hadda wax duubayo jijimihii calanka Soomaaliland ugu jiro gacmaha waa kana soo jeedaan bal adigu ka tali waxa calankii maaqir iyo calankii Soomaaliland kulmiyay waa kaas wiilkiisa war dhafoor ku yaala cadeymahan anigu itusoo taabsiba halkan soo dhigaya soo ma jeedaan wiilkaas isaga dhalay ninka mudaharaadkan abaabulay ee lacagaha soo qaatay ee ina dhoora la shaqeynayo wiilkaas u dhalay oo jeedaan jijimaha calanka aad iyo aad sidee wax u dhacay saakii adigu abaaro 8 subaxnimo nimankan hadaaftimay ka soo tageen magaaladii baran bay isku soo qaadeen magaalada baran hadda maamul baa ka jiro system iyo nidaam baa ka jiro waana caasimadda gobolka Sanaag ee ku meel gaarka ah weeye baranay mataqaanay nidaam iyo dawlad baana ka jirto tuulooyinkoodaas loo ogolgolaaday waxay ka qabsanayaan inay ka sameeyaan laakiin ajandayaashii loo soo diray waxay rabeen inay ku muujiyaan baran waxaana ka hortagay ciidamada difaaca Puntland ee gobolka Sanaag ayaa ka hortagay oo rasaas ku kala eriyay waliba xabada iyaga bilaabay markay ciidanka arkeen ciidankiina waa iska difaacay halkaas ayayna ka carareen hadaaftimay ku laabteen arrin baan rabaa inaan ka dabageeyo ina dhoore xalay baa waxa lagu soo qaaday baabuur barabakis ah magaalada waxa la soo galiyay baran saacada guriyaha baran buu ku dhuumaalaysanaya hadda guri baa lagu qarinaya aninkii fidnadan la soo doontay dadka nabadda ah guri buu hadda ku dhuumanaya ciidankii baana ku daba jiro saraakiisha mataqaanay ka hortagtay isku daygaana waa saraakiil gobolka u dhalatay way waa saraakiil gobolka u dhalatay way waa taliyaha ciidanka turbotaariyada oo ah nin dubaysa iyo taliyaha ciidanka af ururway taliyaha Xasan Taataan la dhaho ciidankan korna waxa ka haysto taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Aadan Axmed Ali Awl baa ka haysta Suldaan Saciid bay isku reeriyihiin ilma adeer labaad ilma adeerishiin ninkii fidnadan soo abaabulayna magaalada baran buu saa ugu dhexdhoomanay hadda gurigu madaxa kala dusay hadda waa la qarinaya wiil gaahila ahna waa ku dhintay meeshaas dhaawacna waa jira saasta ay soo rideen wiil gaahila ah baa ku dhintay haddaba qorshayaashan iyo xargahan maxay tahay danta laga leeyahay maxaa xilligan gobolka nabadda ah ee Sanaag fidnada loola soo doontay waa laba qodobka koowaad doorka Xasan Sheekh baa qayb horta ugu weyn ku leh Xasan Sheekh Maxamuud ninka la yiraahdo baa doorkan qayb ugu weyn ka ciyaarayo marka koowaad ninkaas horta ma doonayo inuu maamul SSC qaatum ah dhismo sidoo kalena wuxuu rabay in bulshooyinka gobolka Sanaag iyo maamulka Puntland oo iska horkeeno arrinta kale uu diidan yahay waa jirtaa in reerahaasi Sanaag degan iyo reer qaatumo inta isfahmaan ay wax isku darsadaan Xasan Sheekh Maxamuud ay maamul buuxa u tagaan ayuu ka soo horjeedaa waxaana ku laban xilbaano isaaq ah ku laban arrintan karkarinayo ma aqligooda saqaliyahan la soo tuuriyo waxba kama warqabaan waxba ma ka warqabaan wada horgallo ayay mataqaanay bay ka wada dhigeenba meesha qof aqli leh xataa ka soo tagay bal adigu shiina culay iyo dhoore
iyo ma taqaanaaye waxaasa waxay u yihiin baalki horgallo u ah dadka caqliga lahaa aaway waa diidan dadka caqliga lahaa saraakiishii siyaasiyiintii waxgaradkii cuqaashii aaway kuma jiraan wiilkaas dhoorre ah oo inta carooday ma taqaanaa jeebka kala soo baxay calankan baa qayb ka ah horta xasan doorka u weyn buu ciyaarayayo waa ninka dee dagaal cad buu ku soo qaaday gobolkan iyo Puntland inuu isku dhufto shir buu u qabtay haddana isagaa soo diray lacagahan isagaa ku bixiyay taas cidna daa kama saarna doorka labaad waxaa ciyaaraya nimankii iyo door baa ciyaaraya weliba siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah weliba waxaa jiray kulan dhawaan dhex maray Mahdi Guuleed iyo Dhoor Mahdi Guuleed xisbiga in adeerkiis wadani wato ayaa Dhoorre waxa laga dhaadhiciyay wasiir buuxa lagu siinayay deegaanadii inta tagtid ismuuji deegaanadii inta tagtid ismuuji shirkaasina dhawaanba Muqdisho ka dhacay waana wax la wada og yahay xisbiga wadani baa la hadalsiiyay madaxdoodii baa la hadalsiiyay wasiir buuxa laga dhigayaa bale oo tag gobolkii waa tana markii hadda xogtaas dadka deegaanka waa heleen saraakiisha iyo mataqaanaa talisadii ciidamadu ee gobolka Sanaag waa heleen waxa loo ogolaaday inuu tuulooyinkiisa iska marmaro magaalooyinka laakiin sumcadda Puntland ee gobolka Sanaag baran ceel buux kulli waa loo diiday buraan baa kamid magaalooyinka loo diray iyo dhahar kulli waa loo diiday tuulooyinkiisa iska soo marmaray markuu baran soo aadayna waa kaasa fidnada abuuray markii xogta la helay inuu xisbigaas la shaqeeyo labadaas door baa la ciyaarayaa qolyahan iyo doorku siyaasad kale isticmaalayaan waa jirtaa maadaama xilligan ciidamada SSC qaatumay xilligan joogan tuulada Masagan waxa ay rabaan in culaysku ka digo oo qolyo horgalaa inta sameeyeen ayay ku jiheediyeen dhulkii nabadda ah warday gobolka Sanaag de baran iyo buuceel buuciyo kulli deelan warsangaliya haysta anshuurta ma taqaanaa xildhibaanada warsangaliya siyaasiyiinta warsangaliya baa kala soo baxa iyo wasiirada ku matala Puntland laakiin sicir gaabadan hal xildhibaanana ma haysatid hal wasiirna ma haysatid magaalada adigu gobolka aad majority ka ahayd ee Sanaagna waa kan lagu canshuuriyo lagu jeedlayo maayir kama tid gudoomiye gobolka kama tid magaalada caasimadda ahayd ee la rabay in adigu gacanta ku haystid maadaama gobolka Sanaag adigu aad degtid uma jeedaan caqligaas waa la soo turay aadiyad waan bogaadinayaa ciidamada gobolka Sanaag ee arintaasi ka hortagay fidnadaasi ka hortagay tuugtaasna kala ciirshay wiilashii dhintay cidii qasaaruhu gaatayna ninkaas inuusan magaalada ka bixin barti fidna wuxuu abuuraba Soomaantay dad kuma layn magaaladii dhulkii nabadda ah inta tagayso dad kuma layn hal la qabto maxkamadna waa in la soo taago dadkii meeshaas ku leedayna isaga mas'uuliyadooda qaaday mas'uuliyadooda isaga qaadayo maxaa baran ka jiray maxaa dhaar ka jiray ma ciidan warsangaliya ahayn baa joogta waa maya muxuu fidnada ula doontay hadduu anigu waxaan la yaabay maakhirtaan meeraysanaysa dhulka nabadda ah ee Sanaag maakhirtaan ka soo cararaysa dhulka lagu canshuuray jeedalka la dhacayo baa fahmi way anigu muceeri gaabaad hadduu fidna rabo iyo dagaal uma socdo waa nin la soo diray way waa inuusan magaalada ka bixin ciidamada waxaan amrayaa inay qabtaan ninkaas gacan ku dhiglaha ee dadka maanta ilaayay waa in la qabto xaqiiqaduna waa intaas weeye fidna aan iyaga ahayna meeshaas kama dhicin dhibaysan iyo goysanna kama dhicin meeshaas arrin kale jirto oo ku soo kufinayo horta cidda meel walba ma taqaanaayay lacagta ka raadinayso ee ilaahay intaas ka waalay waa harti wey anu harti waxaan u soo jeedinaya waliba harti isma saarnee nimanka hadda ayaanta la xamanayo nimankaas warsangali jufuday doonaan ha noqdaan lugaha meel isugu dubdaan leeyahay lugaha meel isugu dubd wariyaa ma aragta nin habar jecla ama nin habar yoolisa oo inta burco tagay calankii Soomaaliland ka taagay calankii Khaatumo ka taagay ma aragta ama calanka ma akhrigeynaya ama calanka Puntland geenaya ma aragteen nin ma taqaanaa habar yoolisa oo calanka ma akhir ka taagay ceeri gaabo ama deegaano kala geenaya ceel afweyn baashi geenaya ma aragta maya cidda la yaaban yahay ee meel walba dhuuniga la ordaysa waa idinka anigu ninka runta kama nixiso runta haday laba tahayna haday hal tahayna laba kama dhiganiga hadalka cidda waalan ee meel walba intaas ka baabaaday ee horgolka ah ee najaasada ah waa idinka
qadiyadiina ku adkaada bal iimaankeedan ka qaaday imada leekiisi qadiyadiina ku adkaysta meeshan aragtiya isaya cid qabiil isma hayaan waa kaas ninka isaaq goormu gooni goosigiisa ka tanaasulay ninka isaaq marka aad nabad ka helishid waa inaad gooni goosiga u wato aqbashid adiguna ma rabtid goorma taada ka tanaasulay maada ka tanaasulay taada meelo hoose iyo maaqir iyo qaatumo iyo waxaas wax ka weyn baa jira iyo Puntland iyo wax ka weyn ayaa jira qadiyad baa jirta guud oo aan ragga isku hayno aduu qadiyadaada marka ma iibsatay ma gadatay ma ka tanaasulay adigu waan soo dhaweynayaa ciidamadu tallaabada ay ka qaadeen tuugtaasna waa in la xashariyo waa in la qabto in maxkamad la soo taago aan indharo xildhibaan Puntland ka soo noqday horeyna nimanka iyo door hadda uu ku laabtay hadda ku laabtay marka waxaan leeyahay intaasan ku soo kufinaya shaqadaasna isaga kiciyay meel nabad oo aysan dhib ka jirin buu dhib la doontay insaas loo ogaado cidda fidmadaas gobolka baran magaalada baran abaabuleysayna waa ninkaas cunkaada gudoomiyaha igu soo magacaabeen isaguna inuu joogaa la ii sheegay wiilkiisana waa jooga meesha kulli waa in la qabto aadiya عضيمي مواد بهاي ستام معاك لو كفلسان إذا لساك عضيمي عرفتين بالله توفيق انتاسان كسوك فينا صاحبي